ciidamada naasiga ee Adolf Hitler waxay duulaan ku qaadeen oo saacado kooban ku qabsadeen dalka Poland. Tallaabada militariga waxay astaan u ahayd bilowgii dagaalkii labaad. muddo toddobaad gudaheedna ciidamada cirka ee Jarmalku waxay weeraro xiriir ku qaadeen maraakiibta shidaalka ee marisay badaha Mediterranean-ka iyo Atlantic, taasoo ugu dambeyntii keentay in shirkadii Ameerikaanka ah ee ku hawlanay shidaalka Sacuudiga ay ku adkaato inay shaqadeeda ka sii wado halkaasi. waxaana arrintaasi sii xumaatay markii diyaaradaha dagaalka waddanka Talyaanigu ay duqeeyeen ceelasha shidaalka ee dalka Bahrain, sidoo kalena ay si khalad ah waxyeello ku gaadhsiiyeen ceelasha shidaalka ee magaalada Dahraan ee dalka Sacuudiga. xilligii weerarka cirku qabsaday xarunta aanu joognay, shirkaddu waxay go'aansatay inay dhammaan shaqaalaheedii ajaanibka ka saarto dalka. taasina waxay dhalisay in soo saarista shidaalka Sacuudigu istaago dhowr bilood oo keliya ka bacdi markii uu bilaabmay. isla sanadkaasi waxaa dalka boqortooyada Sacuudiga ku habsatay abaar baabi'isay xoolihii noolaa ee dadku haysteen, waxaana sii kordhay dhibaatadii dhaqaale xumo ee ka jirtay dalkaasi. boqorka oo cabsi dheeraada ka qabay saameynta ay dowladda Britain ku lahayd gobolka, waxa uu garowsaday in hadda kadib aanay boqortooyadiisu dhexdhexaad kasii ahaan karin dagaalka caalamiga ee soconayay. waxaana xidhiidh la sameeyey xukuumaddii Jarmalka, taasoo uu ku qanciyay in haba yaraatee aanu dalkiisu taageeri doonin xulafada Allied Powerska ee Jarmalka kasoo horjeeday. ballanqaadkaasina waxa uu boqorka ka dhigay mas-uulka keliya carbeed ee xilligaa dhexdhexaadka noqday dagaalweynihii labaad ee dunida. xilligaa dhanka waqooyi ee jasiiradda carabta waxaa ka bilaabmay kacanyahano qowmiyiin oo doonayay inay Britain ka saaraan dalalkooda. kacdoonnada ah oo qaarkood ay horkacayeen muftigii guud ee magaalada Qudus oo Falastiin ka dagaalamayay, iyo dhinaca dalka Ciraaq oo uu ku sugnaa sarkaalkii Rashiid Ali Kaylani oo sanadkii 1941 inqilaab ku qabsaday xukunkii magaalada Baghdad kuna dhawaaqay dagaal ka dhana joogitaankii Britain ee dalkiisa. waxaana uu taageero militari ka helay dowladdii Jarmalka oo siisay diyaarado dagaal oo aan badnayn. nasiib darro muddo kooban oo bilaabay markii Rashiid Kaylani uu la dagaalamayay ciidamadii Ingiriiska ee ku sugnaa Ciraaq, waxaa lagu jabiyey dagaalkii, waxaana u soo baxsaday dhanka Sacuudiga oo martigelin siiyey. inkastoo ay Ingiriisku ka cadhoodeen tallaabada martigelinta, haddana waxay ku qanacsanaayeen inay mar kale Ciraaq gacanta ku qabteen. inkastoo ay la taliyayaashii dhanka siyaasadda caalamiga ay kula taliyeen boqorka inuu la safto isbahaysigii Jarmalka hogaaminayay oo xilligaa gacan sarreeyey, haddana Britain dhankeeda waxay si rasmi ah uga dalbatay boqorka Sacuudigu inuu ka baxo go-aankiisa dhexdhexaadnimada, islamarkaana kusoo biiro xulafadooda. taladii hortaalena waxay xilligaa u muuqatay laba daran mid dooro.
كانت القوات الألمانية في تلك الأثناء في فبراير عام 1942 xilligaa oo ku beegneyd bishii February 1940 ciidamada Jarmalku waxay marayeen dagaalka magaalada Alexandria oo ay 70 kiiloomitir u jireen si boqorku la safan lahaa xulafadii kale ammaanka boqortooyadu waxa uu gali lahaa khatar bishii February sanadkii 1945 waxaa soo khafifay culayskii dagaalkii labaad ee dunida waxaa soo dhawaatay jabkii ciidamadii naasiga madaxweynihii dalka Mareykanka Mr. Roosevelt oo saaran markab kuwa dagaalka waxa uu soo gaaray badda Mediterranean-ka si uu uga kulmo boqor Cabdilcasiis bin Cabdiraxmaan Al Sacuud markabkii Ameerikaanka ee USS Murphy ayaa isna soo gaaray magaalada Jeddah boqorkii Sacuudigana u qaaday goob qarsoodi ah oo kulanka labada hogaamiye ka dhacay Mr. Brad Mitch waxa uu ka mid ahaa dadkii